maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta gobolka Hiiraan ayaa waxa maanta la filayaa in la horgeeyo askar ku eedeysan in ay ka dambeeyeen dilka taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan kaas oo maalmo ka hor lagu dilay deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan ka tirsan. askartan ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen dilka taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan isla markaana waxay iskugu jiraan booliis, nabad sugid iyo military. Dhamme Maxamed Cabdulle Aadan, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku hayaan ilaa iyo 6 askari kuwaas oo iskugu jira booliis iyo nabad sugid iyo military isla markaana ay ka dambeeyeen dilka taliyaha booliiska gobolka Hiiraan isagoo sheegay in ay xiran yihiin maxkamadan la horgeyn doono. xafiiska xeeraalintan waxaa ku amarnay inuu baaritaan sameeyo dilka sidoo u dhacay ciddigiisatay inuu cadaalad horkeeno. xafiiskii shaqadiisu qabsaday meeshii Kalabeer uu tagay guddi amniyo oo asaga ku hogaaminaya inuu xil saarno oo baaritaan arrintaas ku sameeyo. dhowr qof meeshii laga keenay oo la soo xiray oo la keenay dadkii waa la ishaandeeyo waa la baaritaan lagu sameeyay. 6 qof adigu ugu dambeyn iskaameed ka soo baxay intaba 3 waa military 6 ruux waxaan u dirnay xabsiga dhexe ee degmada Beledweyne oo caaway ku xiran yihiin aan kula hadlayn. tan iyo markii la dilay taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan waxa halkaasi ka dhalatay xiisad xooggan waxaana sidoo kale magaalada Beledweyne ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo madaxda maamulka Hirshabeelle iyadoona dawladda Soomaaliya ay guddi u saartay dilka taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan iyo xiisada ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dhanka kale maanta ayaa la filayaa in la aaso taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan kaas oo maalmo ka hor lagu dilay deegaanka Kalabeer ee duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.